anigu intaan ka aqaano dee adduunyada iyo dhulka aan joogay 59 waddan baan jaamacadahooga ka hadlay ciidamo amba bilays ha noqdaan ama military ha noqdaan meel walba laba amuurood bay u taagan yihiin mid waxa ugu horeysa waxa weeye daafac waddan dee xadka waddanka inay daafacaan iyo nabadgelyada waddanka gudihiisa inay ilaaliyaan taasi waa ta halkan idin keentay oo dee mas-uuliyadda aad garanaysaan ee halkan idin keentay dadka reer Somaliland inta waddanka joogto oo dee gudoomiyuhu oo aad uga warhayo iyo inta iyada kumanaanka ah ee dibadda joogta boqolaalka kuna dibadda joogtana aad iyo aad ayaanu idinku mahadnaqaynaa nabadgelyo aan daafac lahayna waa la iska soo jiiri kolka peace through strength weeyi waxaynu isku ognahay idinkuna aad noo sheegteen marka allah idinla jiro aad iyo aad kashka iyo laabta ayaan anu idinku farxay markaan idin arkay taasi waa intaas walaalaheen reer Puntland in badan baan ka aqaanaa anu jaamacada wada galnay Cabdiwali Dr. Cabdiwali waan aqaanaa waa xogaabu iga dambeeyay jaamacadaha aad baan isku naqaanaa waa dadkeenni waa dad Soomaaliyeed dhaqan baynu wadaagnaa af baynu wadaagnaa diin baynu wadaagnaa laakiin dee laba waddan oo kala qarana ayaynu nahay sidaa wadamada adduunyada carabta oo kaleba ay yihiin waa dad caraba diinta islaamka wada haysta daris qaarkood ay yihiin laakiin dee way wada nool yihiinoo waxaa waa laga heshiiyey marka reer Puntlandna waxaan ku leeyahay tartankay naga dhexeeya ku dagaalyaanu noqonin tartankay naga dhexeeya ha noqdo ku dhaqaala dhis jaamacada iyo iskuulla dhis maxaan ku dhahay hawada iyo dhulkaas sidii loo hagaajin lahaa